ما شاء الله قول السلام يا دماغي مكانه ما تحصل ذكر اللي قلت له ما تو على دحلا wax walba laga dhaxla ilaahay dadka ay faqta diyaar rajal waxaan rabaa dadka gobolka banaadir iyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan inaan u sheego walaalayaal noloshii qaab nololeedkii iyo meeshii aan ku noolayn 30 iyo dhowrkii sano ee la soo dhaafay ayaan rabnaa inaan ka guurno oo meeshaas meel ka roon haddii alla yiraahdo aan u guurno isbeddel aan la nimaado isbeddelku waa xanuun badan yahay wixii aad baratay meeshii aad deganaa jirtay wadadii aad ku sii kufkufi jirtay wixii oo dhammaa ayaa kula habboon oo kula fiican oo aad jeceshahay inaad iska joogtid annaguna waxaan leenahay meesha laga guuro meel sana loo guuro wada jajaban aan ka guurno abusiiba aan ka guurno meel argagixisadu ku dhuumato oo maxaan ku raada aan maaro loo hin aan ku dhuumano suuq sanadkiiba mar ama laba jeer ay xooluhu ku gubtaan ku baaba'aan oo dabdamisku aanu gali karin meel laga gala aan lahayn aan ka guurno oo hanti Soomaaliyeed maalin walba ay ku burburto ay ku baaba'do meel looga gurmaday meel aan lahayn aan ka guurno yaani waxa soo dhamaan rabnaa inaan ka guurno guurimaadkaasi marka waa xanuun badan yahay dada dhibaya dada maxaan ku raadayay aan ogeyn ba maxaa meesha waana dhaqanka iyo dabeecadda isbeddelku uu leeyahay waaye marka dadka Soomaaliyeed ee cabanaya ee maxaan ku raadayay cataabaya ee aad arkaysaan garaawshay leeyihiin laana xanuunka isbeddelka ayaa keenay waxyaabahaas oo dhan laakiin magaaladan waa wajigii Soomaaliya qofku muxuu ka soo horbaxane wajigiisaad ka bilowdaa fiirmada ee lugiisa kama bilowdi wajiga qofku haduu qurxin qofkaas waa qof qurxoona la leeyahay waa gabar qurxoon waa wiil qurxoon waa saas meeshaas laga bixinaya hadii qofka wajigiisa si ka soo u sameeyay saaka aanu muxuu wajiga soo dhaqanin oo aanu soo habeeno aanu soo shalaysanina quruxdiisa waxba kama booqanayaan magaaladan caasimadii Soomaaliya waaye magacii maqaamkii iyo wajigii Soomaaliya laga daawanayay waaye xamar wixii lagu arkaa dalka intiisa kale laga fahmaa inay tahay dalkuna waa fiican yahay dhammaan xamar sida dhismo uga socdaa meel kasta uga socdaa garoono cusub wadooyin cusub wax badan oo cusubaad kulli ka socdo muxuu ahay gobolada dawlad goboleedyada iyo deegaanada qaarkood in badan oo kamid ah waxaan rabnaa marka isbedeladaasi xanuunka iyo xanafta ay wadadan markii la dhisay dada jidka dhinaciisa laga kiciyay dada muxuu ahay guryahooda qaar wadada ay ku soo jireen laga dumiyaa laga dhaqaajiyay dada meel walba haday joogan sida loo dhaqaajinay suuqyada hadii muxuu ahay wadooyin dabdamiska uu ka galo iyo bari haday koronto baxday haday koronto gubatay haday wax dhacdo hadii laga furi tago ma aha macnaheedu in la waxaynayo carab Soomaaliyeed sida duqa magaalada hadda uu sheegay xooggeena iyo xoolaheena aan isku darsanno si dalkeena qurxoonaad dalkan inuu qurxoonaado oo meesha uu joogo oo ka dhaqaaqo waxaan ahayn muraad aan lahayn ma lihin waana muujinay muraadkeenu inuu kaas yahay waana ka shaqaynaynaa walaalayaal dalkan 4 sano la soo dhaafay meeshii uu joogay maanta ma joogo maalin walbana uu sii socon doonaa dabcan 4 sano ka horna 10 sano ka hor meeshii uu joogay ma joogin laakiin xawliga socodka ma gaabinaynaa mase waa dheeraynaynaa intaas una la isku haystaa mugdabku isbedel dabeecadiisa keenayso asalka magaalada Muqdisho quruxda iyo bilicsamada yarta ee ka muuqata waxaa keenay dadaalkii ciidamada amniga iyo maamulka gobolka Banaadir iyo xukuumadda dan qaran ay isku biirsadeen oo la soo tagay magaaladan amnigeeda in wax laga bedelo alxamdulillah magaalada amnigeeda wax badan ay iska bedelay amnigaas ayaa keenay daarahan dhaadheer in dhismaan amnigaas ayaa keenay wadooyinka inay dhismaan
amnigaas ayaa keena xaafaduhu inay interlock wadooyinkoodii oo dhan ay wada noqdaan muxuu ahay bilicsami iyo qurux iyo nadaafad ay ku soo kororto amnigaa keena mahad ilaahayaa iska leh kadibna mahada ka gaarto wiilasheenna iyo gabdhaheenna ciidanka amniga ee sababay inay magaaladeenna ay sidaan noqoto dadka daarahan dhaadheer ee dhinacyadeenna ka muuqda dhistay beesada waa haysteen hal caawo beesada jeebkooda kuma soo dhicin laakiin si ay u dhisaan iyo niyad ay ku dhisaan iyo kalsooni ay ku dhisaana ka maqneed maanta way heleen waana taa waad arkaysaan magaaladii muxuu ay soo dhasho dalkan doorash siyaasadda qofaysan waxa 30 sano meesha nagu hayo xasan sheekh asaasiri cali asaasiri jaamaca asaasiri siyaasad muxuu hebelooba diidan hebelaa ka dhacay oo heshiis intaan doodno wax lagu heshiiyey maalinta dambe inuu barmay waxaan ma raba aniga waxaas kalaan rabaa war shalay sootaad muxuu ahay aan ka doodnay oo aan ku heshiinay maanta ragga qaarkiis aan isaysanaa waxaan haynaa waa documented saxiixoodii ku yaallo 20 heshiis ka badan oo ay galeen oo ku saabsan doorasho qof iyo coda guddiga doorashooyinka dhismihiisa maxaan ku raraa qaabka doorashada modelka doorashada wax walba inta laga hadlay lagu heshiiyey ay saxiixeen maanta wuxuu yiri may doorashadii dadbaneedaan rabnaa doorashada dadbaneed waa laga yimid waa dhamaatay doorashada dadbaneed waa laga yimid waata meeshii aniga hebel hadaanan xildhibaan tahay aan dheyn hebelna xildhibaan miid aan dheyn maxaan madaxweyne ka ahay maxaan hebel u ka ahay war adiga hebel xildhibaan ma inaad tiraahid maaha xildhibaanku dad wakiil ka yahay dada muxuu magacooda ku jooga ayagu ha dhahaano hebelaan rabnaa hebelna ma rabno heblaayaan rabnaa heblaaye ma rabno ayagu ha dhahaano adiga u fududay fursad siin dadka ay saas ku dhahaan maya anaa dhahayo doorasho dadban haddaad maqasho waa dad anigu aan leeyahay aan dambiil ku soo rito waaye taas baan ummadda soomaaliyeed maanta qarniga 21 waa ka nimiday muddaan ku soo caana maalnay waa ka nimiday waa dhammaatay doorasho qof iyo cod la aada haddii alla yidhaah ilaahay inta maanta aadi weydana berriyay aaday intii maxaan maanta joogtana maantay aadaysaa qarash badan ayaa ummadda soomaaliyeed ay ku bixisay dalku doorasho qof iyo cod inay ka dhacdo beesada iyo qarashka lagu bixiyey doorasho qof iyo coda inay dhacdahay sida hadda gudoomiyaha wadadan uu ka sheegay hal shilin oo ajnabi uu bixiyo kuma jirto hal shilin oo ajnabi uu nagu taageer doorasho qof iyo coda dalkan inay ka dhacdo haba yaraatee ma jirto xoog iyo xoolo iyo caqli hal khabiir oo ajnabi ah oo ka taliyey oo tala kulana ma jiro khabiir Soomaaliyeed aqoon-yahano gabdho iyo wiilal ee Soomaaliyeed xoolo Soomaaliyeed ayaa horta doorashada ay ku socotaa ay haddana ku socona ilaahay idinkiis inta dhino waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed saas ha u ogaadaan xoolahoodii iyo xoogoodii iyo caqligoodii iyo xurriyadoodii ayaga in uu qofka Soomaaliga ah go'aan ka gaaro mustaqbalkiisa iyo u dhiibanayaa waxaan u baahannahay dadka Soomaaliyeed inay doodooda ay aado waa meeshaas laakiin cali dheer iyo caasha gaaban iyo maxamed qaloocan iyo ma aan korno caqligeenu ha koro khibradeenu ha korto waxaan arkaynaa shalay godkii aan ku dhacna mar kale ayaan ku dhicin bini'aadan annahay waa qaldameynaa qalad waxaa ugu xun midka mar intaad gasho laba sababood kuu keena inaad qaladkaasi uu kuu sababo qaladaad kale inay dhacaan iyo isla qaladkii inaad ku noqoto ood haddana biri ku noqoto oo haddana biri dambe aad ku noqoto oo haddana maanta ku xigaad ku noqoto taas waa mid ceeb kale laakiin adoo dadaalaya inaad qaldantaa ceeb ma ah inaad gaabisaa ceeb ma ah laakiin ku noqo kiis meesha shalay ku quftay haddana ku quf maalin dambe haddana ku quf taas waa waxa oo ceebta iyo liidanaanta ah marka ilaahay idinkiis dadka Soomaaliyeed dad caqli badan xeelada badan adkaysi badan dadaal badan waaye aan midayna leh dadaalkeena waxayna aan midayn aan toosno shacabka Soomaaliyeed dowladda ma jiri karto shacab la'aan shacabna ma jiri karo dowlad shacabka waa haysanaa waa kan quruxda xooga badan oo toosan dowladda u baahnaa inaan yeelano shacabkaanoo ma sii jiraysid maalin walba daartaan dhisatana waa la duminayaa adiga xilliga dowlad haddaadan helin maxaan ku dhahay mas-uulkaa noqoto oo ku ilaalisa caatifada qabaliga iyo waxa nolol soo hoosgelaya aan iska ilaalino Soomaaliya ma kala fiicnaa karto meel fiican meel xun ma yeelan karto Soomaaliya la yiraa ama waa fiicannahay ama waa xunnahay
laakiin maya reer hebelaa fiican reer hebelna waa xun yihiin maya reer hebelaa horumarsan reer hebel waa dibdhacsan yihiin waxaas wax jira maaha dal fiican diin fiican dad fiican intaba waa leenahay intaan garanno oo aan gacmaha kor u taagno alxamdulilah nidhaahdo hawsheenna aan qabsanno aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ومدو ديقنا عليكم ديسانك ديقنا عليكم ديسانك